waxaan jeclahay inaan dhageystayaasha doonaya inay nala soo xiriiraan barnaamijka intuu socdo telefoon noo soo diraan ay naga soo wici karaan numberkan 442 hal 8 laba 7 9 aan ku celiyo 442 hal 8 laba 7 9 6 7 waa dhageystayaasha doonaya barnaamijkan toos inay uga qayb galaan oo ay telefoon iminka ay nagu soo wici karaan waxaana hadda ku jiraba oo uumiye nin la yiraahdo oo galguduud jooga السلام عليكم واتهي magacaaga noogu bilowyo meeshaad galguduud ka joogtid ka bacdina noo soo koob dhageystayaashu aad bay u badan yihiin iyo dadka doonaya iyo martidaba magacaygu waa xuumiya dhamaan qolad BBC iyo dhamaan weyn salaamaya waxaan joogaa galguduud dowlad goboleedo ma kamid tahay gobolka Hargeysa ma kamid tahay Soomaaliland ma kamid tahay mase waa gobol mudnaanta ninkii keensada ayaa iskale oo mudnaan way keensadeen Soomaaliland way ogtahay balse hadda ma kamid yihiin dowlad goboleedo Soomaaliya ma kamid yihiin taas weydiiyo yaa weydiina anima ay weydiinay mase wasiirada iyo martida kale ee barnaamijka ku jirta iyo xildhibaanka iyo wasiirka Soomaaliland iyo kee doonaysaa in aad toos u weydiiso waxaan weydiinayaa wasiirada iyo madasha shirka iyo dhamaan waa tahay aad baa u mahadsan tahay uumiye galgaduud jooga wasiir cadani waa maqlaysaa ninkaasi wuxuu yiri maamul goboleed baa tihiin ma tihiin su'aal buu ku weydiiyey waan uga jawaabaanaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland afayeenkeeda ah anaana halkan maanta u fadhiyaa waxaad moodaa inaad dadku waa la kala badan yahay meesha ku jira marka waxaan doonayaa inaad si fair u hagto programka waa iga codsi qodobka kale waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliya waxay la midowday iyadoo dal madax banaana 25 sanadood rubuc qarniyana maanta way madax banaana intii baad ku soo celinaysaa saacatul wasiir ninkaani wuxuu ku yiri maamul goboleedyadii wadanka juqraafigi ma ku jirtaan mise kuma jirtaan dal baanu nahay cabdi nuur soo celinaya waxa faatiska jira waxa goodaa cabdi nuur runta haddii aan ku sheego waxa weeye waxa su'aashu sidee tahay baan uga jawaabayaa adigu wariyaa tahay haye waa inaad deeqeer ka noqotaa dhinac cidna saarin ma iska kay handadin aniga anigu waxaan rabaa waqtiga aan haysanay inaan ku xisaabtano iyo waxa dadku ay ku weydiinayaan un kaliya inaad ka jawaabto su'aasha ay weydiinayaan uga jawaabayo waqti baa nagu socda ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland cabdi nuurow afkibay markii horena xor bay ahaayeen oo dal xor ay ahaayeen markay Soomaaliland la yimaadeen malaadin bariga waa jirtay baan u maleynaya maxaa ka siya cabdi nuur Soomaad garan imikana waa dal 25 sanadood xora war anagu ma diidanin walaaltinimada iyo Soomaalinimada midaan isla fahanay laakiin Soomaaliya kama tirsanin anagu Soomaaliya waa madax banaan oo madax banaanidiisa haysta cid ay u daba fadhiisanayaan adduunka aanay jirin haday Soomaaliya tahay iyo haday maxaan ku raahdaa caalamka adduunka oo dhan ay tahay diigna uu daatay cid Soomaaliland oo arinta ka gabanaysa aanay jirin wayna taafantaan cabdi nuurow waana ciyaar kula noqon kuna ixtiraamta ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland maxaan ku raahdaa waa tahay saacatul wasiir waxana adigoo wariyaa dooda u dhaxaad ku sheegtay wax wacan ma wanaagsan cabdi nuurow anagu waxaan u aragnaa waxaan u aragnaa wax la qoostay oo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynuhu ugu baaqayo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba in maanka lagu hayo muddo 25 sanadood oo Soomaaliya hawlaheeda iyada wadatay Soomaaliland hawlaheeda dal madax banaan bay ahaayeen muddo 25 sanadood dabeedna doorashadeeda iyo nidaamkeeda iyo hawlaheeda iyaga ayaa ka mas'uul ah waxa kaloo raacsan rubuc qarnigaas midnimada Soomaaliya ka sheekeynaysa leedahay waa wacanta ama waa sidan ama cid kale ay mar walba dhinaca ka soo gelinayso iyo maanta 30 sanadood bay ahayd tan maanta Soomaaliland iyo Soomaaliya u kala maqan yihiin waa 25 sanadood waa rubuc qarni marka cabdiyo waa tahay 25 ka sano cadane Usman aan ku dhameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland warmurtiyeedkiisa salkiisa wuxuu yahay Soomaaliland qayb kama aha Soomaaliya weligeedna ka noqon mayso haday federal tahay iyo haddii ay si kala tahay waxa kale oo raaca waxa weeye cabdi waxaad oo oranayeen Soomaaliya beesha caalamka sidaas ay leedahay
مدة جمهورية الصوماليلاند ضل حرب هاد 1960 مرتي محاكو هذا النبي اللي يسويه 1960 جا تستور كأن سنتي في جمهورية المواطنين جمهورية الصوماليلاند ويكيدوا وكسورتي مركا waxaan u qabnaa midnimada lafteedu فيري عسمان عالمي فيري رياليتيga xaqiiqda aan u nimaano 25 sanaad sheegtay عبد النور 25 sanaad sheegtay 25 sanaad sheegtay in aad ka go'deen Soomaaliya 25 sana wax aqoonsiga ma haysan Eritrea iyo Ethiopia waad ogad siday ku kala tageen mar walbana dad badan oo mas'uuliyiin ah oo Somaliland ama Soomaalida kala ah oo aad isaragtaan waxa la yiraahdaa war ka qayb qaata Soomaaliya siday ku hagaagto hadhow saad doontaan ku kala taga ama isugu taga doorkiini kama idin soo bixin Soomaa عبد النور ريالتيga Somaliland waa kala jaad ريالتيga Soomaaliya iyo Somaliland waa kala jaad waa inaad fahanto jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweynaheeda iyo ummadeeda muwaadiniinta jamhuuriyadda Somaliland afti bay qaadeen 2000 maxaan ku dhahdaa 1key 97 point something 5 maxaan ku dhahdaa kuwaasixiyeen inay go'een waxaad kaloo fahantaa ummadda jamhuuriyadda Somaliland iyo dawladdeedu may diideen inay Soomaaliya la hadlaan oo ay meel wax wada dhigaan ummadda jamhuuriyadda Somaliland wada hadal beesha caalamka oo Sootiishir idin socday oo Turkiga iyo meelo kale aad ku kulanteen ma cidda burburisa waa Soomaaliya waxa weeye anagu daacad baanu ka ahayn waxa weeye adduunkuna maxaan ku dhahay daacad buu ka ahaa markaad Somaliland daris keenteen buu shirkaas u burburay wuxuu kala burburay markii heshiiskii Somaliland iyo Soomaaliya Cabdinuur ee hawada lagu heshiiyay ee labada madaxweyne saxeen dib looga noqday marka waxa weeye Somaliland ciladu halkaas ay ka taagan tahay mar walba diyaar buu yahay nabadgelyo walaaltinimo ku jirta ee laba dal oo walaal ah oo Somaliland iyo Soomaaliya sidii 60kii ka hor ay ahayd maxaan ku raahday ahaada oo isu damqada laakiin waxa weeye waxa cad ummaduna ay cadeynaysaa in ay waxa Soomaaliya maanta ay qooshatay ee aad waxa waxaan ku sheegaysaa adigu waa tahay